masar waxaa ka dhacday masiibo aad iyo aad u xanuun badan. Horeyna waa uga soo hadlay masiibooyin badan oo masar ka dhaceen, laakiin midba midda ka dambeysa way kasii xanuun badan tahay. masiibadan maxaa la dhahayay, gabar ayaa hooyadeed dishay. innaa lillaah wa innaa ilayhi raajicuun. gabadha hooyadeed dishay waa muxaamiyad, yacni maxaa la dhahayay, soomaali waxay u yaqaanaan abukaato. yacni muxaamiyad oo caan ah oo waxaa waye maxaa la dhahayay shaqsiyad, yacni oo dadka ay dhan wada yaqaanaan. maamadana maamo weyn oo da ay ahayd oo 70 jir ah. soo maxaa la dhahayay islaantan iyo gabadheeda hal guri ayay isla deganayeen. yacni gabadheeda maxaa la dhahay waxay ahayd qof oo yacni maxaa la dhahayay garoob ah. soo hal guri ay isla deganayeen, waa isla noolaayeen. maalintii dambeeto waxay dariska arkeen urur, yacni oo maxaa la dhahayay oo yacni guri soo uraayo oo wax lay sas usoo gufaacayo. I don't know of Soomaaligiiga. marka urkii waxay dhaheen maxaa waaye urkan, yacni maxaa la dhahayay waa la weydiiyey, gabadhiyaa la weydiiyey indha adayga gabadhan, yacni maxaa la dhahayay ilaa hadda subxaanallah waa la yaaban yahay, dadka dhan way yaaban yihiin. waxay dhahday maxaa la dhahayay cunto urtay waaye dhahda urkan. gurigii hooyadeed ee ku dishay ee ku jarjartay ee kusii nooshahay ka sheekeeya. maalinta ku xigta urkii isba bedelay. maalinta saddexaad sheekadan waxay dhacday jimcihii ee dhacday. maalin labaadii urki weli sidii waaye. dadka dariska ah waxay u waceen maxaa la dhahayay booliskay waceen. waxay dhaheen maxaa la dhahayay guri dariskeena ah waxaan dareemaynaa riixa kariiha, yacni ur xoog badan oo xad dhaaf ah inuu kasoo uraayo. biliis waxaan rabnaa inaa imaataan oo gurigan jeegaraysaan. waa imaadeen booliskii. gurigii haddii la galaybo first one-ba fadhigii waxaaba yaalaba gacno oo go-an. haddana maxaa la dhahayay waxay usii gudbeen qolalkii kaleeto. adiga cadba meel hooyadii hilibkeedii cadba meelay dhigtay. madaxii xitaa intay gooli u goysay waxay gelisay talaajada maxaa la dhahayay qaybta kore. lugahay bacee ku riday. firiijka dhexdiisa calool miya adi un jirkii hooyadii qayb qayba ka dhigtay, qaybba meelay dhigtay. soo muxaamiyadan yacni muxaamiyad, yacni qof oo maxaa la dhahayay oo qadiyadaha, yacni qof markii la xiro, qof markii dhibaato yacni u dooday ahayd. oo maxaa la dhahayay xitaa waxay mas-uul ka ahayd maxaa la dhahayay kuwo kaleeto badan, yacni ay mas-uul ka ahayd, ay ra'iisad ay u ahayd, ay kasii sarreysayba waddankan maxaa la dhahayay yacni qof oo waxay ahayd yacni la wada yaqaano mucjisada jirto, qof caan ah, qof adii hadda maxaa la dhahayay wallaahi sheekada waxay noqotay sheeko argagaxle. soo ayadiina marka maxaa la dhahayay xilligaas oo booliska ay imaanayaan guriga way ka maqneed. markii la raadiyey adig waa dhuumatay, laakiin waa lasoo helo, waa lasoo qabtay. markii la wareystay isla markii hore ka sheegtay waxay dhahday hooyadii anaa dilay. sababta aa u dilayna waxay dhahday maalin kasta ereyga gabadhan ay hooyadeed u disho waxaa laga yaabaa hooyooyin badan inay isticmaalaan, laakiin digniinay u noqonaysaa fideogan. waxay dhahday waxay ugu caan jirtay garoobaa tahay, yaa mutallaqa, yaa madri eesh, yacni maalin kasta waxay dhahday hooyadii way caan jirtay. sow masaarida iyo soomaalidana aniga waxaan dareemaa inay meel iskaga eg yihiin. qayladoo kaleeto, qaylada iyo xanaaqa badan iyo waxyaalo badan iskaga egnahay masaarida iyo caaytinta. yacni ma aqaano waddan oo carab ah waaye, carabta kale saas ma ahan, okay. laakiin fideogan soo gabadhan waxay dhahday maalin kasto yacni maxaa la dhahayay ereygaasi iigu soo celcelin jirtay. waxay dhihi jirtay maxaa la dhahayay haddana aabbaha nin xunuu ahaa, aabbaha saanuu ahaa, intii maxaa la dhahayay binti fulaan awalba saasaa ahayd. yacni waxay dhahday aabbahay igu caynaya, furiina igu caynaya, waxyaalahaas aflagaada darteeda waxay dhahday. maalinka dambe waxay dhahday ciilaa iga qabta, waxay dhahday ceejaan dhakabsiyey dhahday. innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun. xanuun waa horta. sow marka maxaa la dhahayay wixii gabadha gabar yarna ma ahan, qof weyn oo ayada laftirkeeda 40 ku dhidhow waaye, yacni gabadha maamadana 70 sano jirtaa. ceejaa qabtay dhahday. waa ceejiyey. ceejadii kama soo noqonin ay dhahday hooyadii wax suuxan camal ay noqotay. kadibna waxay dhahday naftiyaaba kasii baxdaybo. nafti markay kasii baxday ani markaas ilaa yacni inaysa halkaas ku dhimanaysa waxay dhahday ma u malaynaynin. waa qabtay dhahday waa seexiyey, sariirteeda geeyey. sariirta markaa geeyey waxay dhahday habeenkii xitaa laabteeda ku seexday dhahday. laabteeda markaa ku seexday aa ku hurdi subaxii soo kacay waxay dhahday yacni hooyadii waxay dhahday nafti kumaba soo laabaninba. markaas laakiin waxay ahayd inay booliiska u sheegto oo dembigeedana qirato calal aqal, yacni cuquubada ka qafiifi lahayd. saa u maraynayay gabadhan. kadib waxay dhahday waxaa ii soo baxday dhahday inaa jarjaro oo si aan u qariyo. haddana wixii way ii qarsoomi waayeen dhahday.
soo maxaa la dhahay jariimadaas oo dhan sida sababtaas darteeda aa u sameeyey wallaahi horta jariimo xanuun badan waa aad iyo aaday u xanuun badan tahay qof hooyadii dhashay yacni intuu dilay haddana jarjar ugu sii daray aaday u xanuun badan tahay fideogan sheergareeya waalidiinta soomaalidana yacni haddii aad tahay waalid ilmihiisa yacni war xun dhahaayo soo warkaas xun canugaada wuxuu ku noqonayaa cuqdadaasna waxay ku noqonaysaa xanuunkaasna waxaa laga yaabaa hadduu adiga xitaa dhibaato ku geysanin inuu naftiisa oo dhibaato u geysto soo maxaa la dhahayay afxumada iyo waxyaalahaas oo kaleeto hal iska dhaafo fideoga meel dheer gaarsiiya